السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت سلام يا خيارت شرفت له مروي مدنيال إن waxaan rabnaa inaan tirooyinka qorno iyagoo nambaraa inaan qorno markaan inaan war ku qorno war nambarada inaan war ahaan u qorno aan u baahana exaambleaan ku arkaynaa laakiin wax yar baan idiin horumarinayaa oo laga maarmaan ah waxaan idiin horumarinayaa in aad bal isku day in aad sheegto kuwaan ay saxsan yihiin qaldan yihiin tan koowaad waa 1300 qoraalka inuu saxsan yahay kala qaldan yahay mase saxsan yahay 1300 saan u qoro farta ugu qoray kan labaad ka waran 35 taas masaxbaa mise waa qalad kan ku xiga 150 masaxbaa mise waa qalad 150 kaas 27 masaxbaa mise waa qalad anigu waxaan dhihi lahaa hadda kan waa qalad kan waa qalad wrong kanna waa sax kanna waa qalad kanna waa sax waay maxay labadan u saxsan yihiin labadan u khaldan yihiin wax yar aan aragno arrintan waxay tahay waxaan niri hyphenate numberska 2299 wuxuu u dhexeeyaa waxaan rabaa hyphenate grace inahe hyphenate grace baa loo baahan yahay 22 iyo 99 wuxuu u dhexeeyaa 22 halka ilaa 99 wuxuu u dhexeeyaa hyphenation maxaa laga wadaa hyphenation waxaa laga wadaa dhibic xariiqda ayarta laga wadaa hyphenation 155 wuxuu u dhexeysaa 22 marka waa inaad labada tir markay yihiin waa inaad u dhexeysaa dashkaas 37 baa kamid ah 86 baa kamid ah 79 baa kamid ah ayna aragno wax yar oo practice marka adigan ka xoogaa ka rabaa inaad hyphenate gareysid nambaradan inaad qortid oo qoraalkii asaga ahaa waa tad ku socotay inaad tiro walba qornee positionka waa kala leeyihiin place valueska haddayna baranin casharadii ka horreeyay bilis ku noqo ilaa milyan baan gaarnay waxaan qiyaasay casharada inaa soo aragtay ilaa iyo kamakii 6 baa ka horeysa waayahay kan ugu horreeya muxuu noqonayaa 4345 okay waa sax hyphenationka wuu leeyahay koomadiina wuu leeyahay koomada wataa kan ku xiga oo hyphenationkan sax waa loo baahan yahay 23000 meeshuu doonaa ku jira hyphenationka waa loo baahan yahay 167 waxa male koomadiina waan saxnay koomadu dee halkaan ka timid dee meeshaas 23000 kaasi ku xigtaa soo ma arkaysa laserkaa saaray waayahay 3,065,256 na 3 milyan waa halkaas 3 milyan koomaa ku xigta waana koomada qortaa halkaa ku qortaa 65,000 kooma kale waa inaa qortaa 256 waa aragtaa 56 oo fiiri sida loo hyphenate garay 56 kana 230,119 koomadii waa saxnay hyphenation ma jiro 30,000 hyphenation male 35 31 32 baa qaadan lahayd laakiin 30,000 waa 30,000 oo go-an ma dhahays 30,000 ma dhihi karta waxaa leedahay 190 sorry maybe halkaa inaa hyphenate garan u baahanta halkaa inaa khalday aan u malaynaya qalinkaa usoo qaata madowga waxaan u malaynayaa inaa halkaas 30,000 wey because 30,000 wey 30,000 waxa u dhexeysaa numberkaan sheegnay 21 ilaa 99 ba u dhexeysaa 30,000 laakiin waa 30,000 wey ando aan dib u noqono ando dhahno kan hyphenation waa khalad hyphenation kan sax maaha 30,000 ma kala waa 30 bay ku egtaa halkaas maaha 31 maaha 31 haddii ahaan leed baa saxsan leed marka no hyphenation no hyphenation no haye next one kan kale adaan kaa sugayaa adaan kaa rabaa kuwa inaad samaysid cajalka joojiso ka shaqee
bilow jawaabaha bilowna hadda weli chance baa haysataa ku joojisatid haddaadan weli joojisana ka shaqayn intaa ka shaqaysa sii soco waaya waatan jawaabta koowaad waa 7015 maxay tahay 7015 waxaa weeyaan there was 7000 koomadii waa gelinay hyphenationna male 123,005 koomadii waa gelinay koomadaas waa gelinay hyphenationna waa gelinay 23 hyphenation waa kaas kula saxiya 7,435,000 de male hyphenation waa leedahay hyphenation baan leeyahay laakiin waxaan lahayn wixii ka horeeya 435,000 29 kaana way leedahay koomada way leedahay 5,830,461 hyphenation waa gelinay koomadii waa gelinay koomadii kalena waa gelinay mid wataa koomadu midna wataa marka halkaa maraysaa la gelinaya halkaasaan joojinaynaa please casharada kale ha ka hareen oo waa inaad number kasta qori kartaa hal mar baan soo gelin doonaa insha allah mid aad u weyn nabarada aad ku waaweyn halkaasaan kaaga tegayaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum